guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo hore u shaaciyay 12 Juun sanadkan 2022 liiska hordhaca ah ee codbixiyaasha degmooyinka Qardho iyo Fayn sida uu qabo xeerka codbixiyaasha Puntland ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay xogta liiska codbixiyaasha degmooyinkaasi guddiga ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay halka uu marayo liiska degmooyinka Qardho iyo Fayn iyo shaqooyinka ay hayaan guddigaasi عبدالنور الشيخ محمد إسحاق وافينك جوديga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa ugu horeyn ka warbixiyay liiskan ay hayaan iyo xogta Qardho iyo Fayn halka ay u marayso wadarta guud waa 48353 wadarta sax ah ama saxsan waa 46839 oo u dhiganta boqolkiiba 96.6 nuqulada labanlaabka ah waa 380 xogta aan dhammaystirmin waa 1134 oo u dhiganta tirada guud 2.3 xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Qardho wadarta guud waxay noqotay 26285 wadarta saxsan waxay noqotay 25405 oo u dhiganta boqoleyda marka la yiraahdo 96.6 boqolkiiba nuqulada labanlaabka ah waa 207 cod xogta aan dhammaystirminna waa 673 xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Eyl waa sidan wadarta guud 12837 wadarta saxsan waxay noqotay 12470 oo u dhiganta 96.9 boqolkiiba nuqulada labanlaabka ah waa 78 xogta aan dhammaystirmin waa 289 markana xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Ufayn wadarta guud waxay noqotay 10230 wadarta saxsanna waxay noqotay 9960 oo u dhiganta boqolkiiba 97.2 nuqulada labanlaabka ah waa 95 xogta aan dhammaystirminna waa 172 gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah ee Puntland isagoo bogaadiyay howsha ay hayaan guddigooda sidoo kale wuxuu tilmaamay inay ka go'an tahay ka shaqaynta iyo qabashada doorasho qof iyo cod oo ka dhacda deegaanada maamulka Puntland waxaa maanta soo gabagabowday inaan shaacino liiska madameysta ah oo hadduu ilaahay yiraahdo 25 bisha tobnaad 2021 ee u dhaqaaqi doona hadduu ilaahay yiraahdo inay doortaan golayaashooda deegaanka ee saddexda degmo sida aad ku arkaysaan shaxda dadkan isdiiwaan geliyay oo hadda aan sii deynay boqolkiiba 49.2 waa rag weeye halka boqolkiiba 50.8 ay dumar yihiin halka waxaa ka cad in dumarka codbixiyaashahi ay ka badan yihiin kuwa ragga ah dhinaca kale dadka da'doodu ay ka yar tahay 30 ama u dhaxeeya 18 oo ah da'da codbixiyaha ilaa iyo 30 iyadana waxay tahay in ku dhow boqolkiiba 60 halka iyadana waxaa ka cad dadka ugu tirada badan ee isdiiwaan geliyay inay dhalinyaro yihiin sidoo kale Cabdinuur waxaa ku jira hadaladiisii nuqlo soo laalaabtay oo 380 ay tahay wadartooda guud 380 kaasi waa dadka isku dayay inay hal mar iyo ka badan isdiiwaan geliyaan waxa jira maadaama uu systemkan uu cusbaa dadka isdiiwaan geliyay hal jar iyo ka badan waxa isku jireen saddex qaybood qaybta koowaad waxa weeye dad magaalada gudaheeda ama degmada gudaheeda laba jar iska diiwaan geliyay ayagoo xogtoodii aan waxba ka bedelin qaybta labaadna waxa weeye dad magacyadii bedeshay laakiin systemku uu soo qabtay oo indhahoodii iyo wajigoodii uu soo qabtay qaybta saddexaadna waxa weeye dad ama magac ha bedeshaan ama isla magacoodii ha qortaane magaalo inta ka tagay magaalo kala tagaysay marka iskaga diiwaan geliyaan oo marka ay u qaataan laba kaar u qaataan guddigu wuxuu go'aamiyay dadka xogtoodu ay isleedahay halka magaalana joogay laga yaabo inay duruuf ku keeneen ama israahdeen waxa weeye sawirka iska bedel wax noocaas oo kala kuwa waxaan ka soo reebnay inaan hal xog kaliya aan u dayno xogta kalena ka saarno iyaga marka kuma jiraan 380 kan hadda aanu rabno inaan maxkamadda u dirno iyo xeer ilaalinta hadduu ilaahay yiraahdo kuwan aan u dirayna xeer ilaalinta oo 380 ka ah waa dadka magaalooyinka iskaga gudbay
inta qardho iska diiwaangeliyay haddana ayl aaday ama ufayn aaday ama magacyada bedeshay iyo xogta bedeshay dadkaas oo liiskooda halkaan uu ku qoran yahay oo sawiradoodii iyo xogtooda dhammaystiran halkan ay ku jirto waxaan u diri doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo xeer ilaalinta si markaa cadaaladda loo mariyo waxaa iyaguna jira ilaa 8 qof oo ajnabi ah oo laga soo dhex saaray dadkii ku dhex dhuuntay oo isdiiwaan geliyay ayaa iyagana laga soo saaray waxaa jira iyadana aan rabo halkan inaan ka sheego hal kombiyuutar intii la shaqaynayay farsamo cilado waa dhici karaan laakiin hal kombiyuutar ayaa waxaba yaraatee xogtiisu ay cilad ku timi ay jirtay kombiyuutarkaana injineero ayaa ka shaqaynaya isagana waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis marka ay soo dhammaystiranto inaanu sidaan oo kale aan u sii dayn doono ugu dambayn sida liiskan ku cad hadda shaxda aan soo saarnay annagoo tixgelinayna cabashadii ka timi gaar ahaan degmada ufayn waxaan ka saarnay xogtii tirakoobka ee wasaaradda qorshaynta oo aanan ku soo darin hadda hordhacna aanan uga dhigin xogtan hadda aan shaacinay awalna waxaan ugu darnay waxay ahayd in dadku ay fikir ka qaataan bal yaa degmooyinka ku nool xogtaana waxay xog anagu aanan mas'uul ka ahayn ay wasaaradda qorshayntu ay mas'uul ka tahay taana annagoo tixgelinayna duruufaha iyo codsiyada nooga yimi dadka iskugu jira mas'uuliyiinta iyo dhaqanka ee degmada ufayn waxaanu ka saarnay liiska kama damaysta inay ku soo baxdo iyadana waan tixgelintaas aan u sameynay waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay in ay diiwaangelintii si fudud oo rasmi ah oo qurux badan ay ku soo dhammaato Puntland ayaa wada qorshihii ugu dambeeyay ee maamulkaasi uga dhici lahayd doorashooyin qof iyo cod ah oo ku dhisan nidaamka axsaabta isla markaana hadda ay diiwaangelin urur siyaasadeedyo balse weli aan si rasmi ah loogu diiwaangelin axsaab ka jirta maamulka Puntland. Nuur Cabdiraxmaan, Nuur, Voice of Somalia, Mogadishu.